السلام عليكم سو dhawaada asxaabta Ramadan Kareem waa cashirkii 16aad oo taxana aynu kaga hadli doono barnaamijka Premiere Pro casharadaas oo si fira uga baxa channelka waxaa idin soo jeedin doona aniga oo Haydar maanta cashirkeenu waxa uu ku saabsan yahay qaabka aad u sameyn lahayd muuqaal yar oo qurux badan haddaynu cashirkeena guda galno hore waxaanu u soo qaadanay casharo badan 15 cashar oo ka hadlaya wax kasta oo aad uga baahan tahay barnaamijka Premiere Pro insha Allah maanta waxaanu ku soo gabagabeynaynaa qaabka aad u sameyn lahayd muuqaal yar oo qurux badan oo qof walba oo daawado uu jecleysanayo marka cashirkan wuxuu noqonayaa cashirkii ugu dambeeyay waxaan rabnaa wax badan inaan ku barano wax cusub iyo waxaan hore u soo aragnayba labadaba waan ku dhex arki doonaa insha Allah markay haddaynu cashirkeena guda galno marka ugu horeysa waa inaad soo import garaysataa waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso haddii aan lahayn muuqaal haddii aan lahayn codad sidoo kale logooyinkaagii sidoo kale sawiradii wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad soo import garaysataa markaad soo import garaysatid cashirkii kan ka horeeyay oo 15aad waxaanu ku soo qaadanay qaabka loo sameeyo proxies muuqaaladan aad aragtaan waa muuqaal aad u xoog badan marka wuxuu sababayaa in program monitorka ama Premiere Pro uu ka istaago aadan ku shaqeysan karin marka waxaad sameynaysaa waxa loo yaqaan proxy marka proxy waa soo sameeyay proxy loo sameeyo waynu baranay waxaad sameynaysaa kan ugu horeeya ilaa kan ugu dambeeya highlight saaraysaa kadibna right click ayaa leedahay waa muuqaalada kadibna create proxy ayaa leedahay habkii aynu marnay ayaa maraysaa marka kadibna waa in halka ku yaalaan waxaagu waa soo jeedinaysaa waxaad leedahay waxa ay dhigtaa meeshii loo timeline-ka marka saas samaysid waxaad sameynaysaa calaamada plus-ka ku dhufanaysaa waxaad soo qaadanaysaa calaamadii toggle proxies-ka ahayd waa soo jeedaysaa halkaad ku darsanaysaa okay ayaa leedahay calaamadaas aad furanaysaa okay ayaa leedahay markaad furatid blue ayay noqonaysaa marka kalena waa cadaan marka blue ayaad ka dhigaysaa si aad muuqaalkaagii si dhab yar u daawatid waad aragtaa muuqaalkaagii meeshaad rabto ayaad geyn kartaa waliba si dhab yar marka waxaan rabnaa muuqaalkan inaynu qurux ka soo saarno hadeer waa muuqaal aan jarjarnayn marka waxa ugu horeeya inuu qabanay waa inaan proxy sameyno waxa ku xiga aan rabno inaan qabano waxaan rabnaa inaan text ku soo darno muuqaalkeena intaan jarjarid bilaabin text-ka qaybta ugu horeysa ayuu noqonayaa horta intaan text ku soo darin qaabab badan oo loo jarjaro ayaa jira muuqaalada marka ugu horeysa haddii aad muuqaal jarjarayso waa inaad horta waxa aad jarjarayso ogtahay aad garanayso tusaale ahaan hadda muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan cod ku dul jarjaro macnaha codka iyo muuqaalku inay isla socdaan mar waxaa dhici karta inaad in yar u baahan tahay oo muuqaalka ka mid ah oo aad goosgoosanayso haddaa wariye tahay intaa rabto intaa goosato kadibna aad hadalkaaga aad u saarayso marka anigu waxaan saarayaa muusikaan ugu talagalay ayaan rabaa inaan saaro oo aan rabo inaan ku fariisiyo marka waxaan rabaa beatska halka idinka muuqda iyo muuqaalkaygu inay isla socdaan saasaan rabaa marka qaabkaad u rabtid qaababku waa kala duwanaanayaan marka qaabkaad u rabtid adaa garanaya qaabkaad u rabtid marka hore ka fakar kadibna jarjaro waxaad u baahan tahay muuqaalkii intaanan horta muusiga ku dul jarjarin waxaan rabaa horta inaan text ku soo daro text qaabka ugu soo darayaa qaabka text ku soo darayo waa iska fududahay waa inaan taabtaa toolka loo yaqaano tape tool ama aan keyboardka tii ka taabtaa kadibna meel ka mid ah program monitorka ayaan wax ku qorayaa waxaan leeyahay COVID-19 waxaan ka hadlayaa muuqaalada tan waxay ku saabsan yihiin COVID-19 ayaan rabaa inaan wax yar oo muuqaal ka sameeyo oo iska fudud sida loo sameeyo iska fududahay markaan saa dhaho wax meesha igu soo biiraya graphic box wax loo yaqaano marka hadeer waad aragtaan text-gaygii meel khaldan ayuu yaalaa si aan centerka u dhigo farta uga bedelo hore baan u soo qaadanay waxaa la adeegsadaa tab loo yaqaano essential graphics waxaa ka heli kartaa Windows kadibna essential graphics haddaan TikTok u saaran TikTok ayaa saaranaysaa haddaa workspace soo samaysatay editingka loogu talagalayna kaasaa tegaysa haddii aadan samaysana kan ayaad ku dhufanaysaa editing tabka kadibna wuu ku soo baxayaa essential graphics okay markaa ku dhufato waa inaa ku highlight garaysan tahay waxaa wax ka bedelayso kadibna essential graphics ayaa tegaysaa kadibna waxaad dooranaysaa textiga aad rabto tusaale ahaan textyo badan ayuu graphic boxkaasi qaadaa laakiin si textiga aad rabto inaad wax ka bedesho haddaanu kuu doornay waxba kama bedeli kartid marka waxaan rabnaa inaan farta ka bedelno nooca farta aan rabo ayaan ku qoranayaa kadibna okay ayaan leeyahay markii farta la bedelo
waxaan ka dhiganayaa size-ka aan rabo. Tusaale ahaan size-kaas aan rabaa. Intaa markaan ka dhigto waxaan dhiganayaa centerka. Labada tan qaab baa u dhigi kartaa inaad alignment-ga aad horizontal iyo vertical labada u saxdo iyo inaad kan taabato labada dhinac waad ka sixi kartaa. Markaad ku qanacdo xitaa size-ka halkan ay ka weynayn kartaa ama adigoo halka tegaya ayaa soo jiidaysaa. Markaad ku qanacdo ayaad centerka dhiganaysaa textigaagii. Tusaale ahaan waxaan rabaa COVID-19 inaan colorka ka bedelo 19. Tida ayaan taabanaya kadibna inta 19ka ayaan dooranayaa. Markaan doorto ayaan waxaan u imaanayaa qaybta fiilka. Kadibna waxaan ka bedelayaa colorka aan u baahanahay ayaan u bedelayaa. Tusaale ahaan yellow ayaan rabaa inaan u bedelo. Okay ayaan leeyahay. Tusaale markaan ka qaado waad aragtaan yellow ayuu qaadanayaa. Marka qaabkaasaan rabaa inuu ugu soo baxo. Textiga laftirkiisa waxaan rabaa inaan ku sameeyo transitions ama qaab uu soo galo qurux badan ayaan rabaa inaan ku sameeyo. Tusaale ahaan markuu saa u socdo markaba inuu isku soo boodo xogaa laga fiican yahay. Marka transition ayaan ku soo darayaa si uu qurux u noqdo. Textiga ayaan dooranayaa kadibna waxaan tegayaa effects ayaan tegayaa meeshii transitions ugu jireen video effects kadibna waxaan tegayaa qaybta zoom-ta. Cross zoom ayaan halka ku dhufanayaa oo ah markuu soo galayo waad aragtaa si qurux badan ayuu soo galayaa. Marka wali waa soo dhaweynayaa xogaa iga durkay. Tusaale halkaasaan rabaa inuu sax wali cross zoom-ta inuu xogaa soo dheeraysa ayaan rabaa. Waad aragtaa markuu baxayana waxaan rabaa inuu si qurux badan ku baxo. Cross zoom-ta ayaan ku celinayaa waxay noqonaysaa inverse ayay noqonaysaa uu soo baxaya textigii. Tusaale saas ayuu ku soo galay kadibna wuxuu ku baxayaa saas ugu baxayaa. Haddaad rabto textiga inaad yarayso soo yareyn kartaa graphic bookska. Waad aragtaa marka qaabka ayuu samayn kartaa. Waan sameeyay intii ugu horeysay. Waxaan rabaa marka inaan soo import gareeyo music file-kaygii si aan ugu dul jarjaro muuqaalkayga. Okay ayaan leeyahay waxaan aadayaa music qaybta aan rabay kadibna waan soo qaadayaa waxaan dhigayaa qaybta audio. Waan barnay sida loo yareeyo shift taabo haddaad rabto inaad audio oo dhan yareysid trackska audio. Haddaad hal xabo rabto inaad ka shaqaysidna alt ayaa taabanaysaa. Sidoo kale muuqaaladana saas aad dhigi kartaa. Haddaad hal xabo rabto in alt aad taabanaysaa kadibna scroll bar-ka ayaad jiidaysaa. Wax kasta aad u baahan tahay waxaad ugu laaban kartaa casharadii hore si detail ah oo aan waxba ka maqnayn baan uga soo hadalnay. Haddaad u baahan tahay halkaas ka heli kartaa. Markaan saas sameeyo waxaan rabaa kan inaan wax yar kala baxsado kadibna aan program monitor-ka aan yareeyo kana aan weynaysto. Marka kan waliba xagga eegay markaan saas sameeyo waxaan rabaa textigayga inuu musica uu saameeyo macnaha uu markuu soo galayo la dareemo inuu soo galo textigayga. Maxaa lagu dareemayaa waa inay isla socdaan codka waa inay isla socdaan. Marka waxaan rabaa beatka ugu horeeya inuu isagu ku soo baxo ayaan rabaa. Halkan ayaan ka jarayaa. Marka edit ayaan tegayaa shortcut-yadeeda ayaan adeegsanayaa kadibna okay ayaan leeyahay. Okay waxaan rabaa qaabka wax u jarjari jiray oo easy-ga ahayd shortcut-ka inaan adeegsado. Si ayaan taabanayaa kan ayaan iska tirtirayaa kadibna waxaan rabaa inaan keeno meesha ugu horeysa textiga kadibna waan soo jiidayaa halkaasaan samaynayaa. Haddii aan ku furnayn snapkaas haddaan ku furnayn tusaale ahaan waa ka xiran yahay wuu dhaafayaa calaamadda wuu dhaafayaa. Laakiin hadduu ku furan yahay markaad soo jiido isaga ayaa toos ugu dhagaya oo waa magnet weeye. Marka tusaale ahaan markii aan saa u soo galo waad aragtaan waxaan rabaa inta ka horeysana inay soo noqoto introduction. wali xogaa ugu horeeya waxaan rabaa meesha inuu ka soo galo. waad aragtaan si qurux badan ayuu soo galay. intan waan ku dari kartaa. kana waxaan rabaa markuu soo galayo inuu si madow ah ku soo galo oo qurux badan. effects waxaan tegayaa audio transitionski video transitionski kadibna waxaan leeyahay cross dissolve kadibna waan yareynayaa. waxaan rabaa inuu ku soo galo si qurux badan. waad aragtaan textigu markuu baxayo waad aragtaan uu baxay. marka muuqaalada kala rabaa marka inaan hagaajiyo kan halkan ka jarayaa waxaan leeyahay x
aragtaa markuu soo baxay. Marka waxaa la rabaa kadka aad samaysay iyo beatku inay isku beegnaadaan. Kadka aad samaysay iyo beatku inay isku beegnaadaan. Markaasaad dareemi kartaa in wax isbedeleen. Aragtaa kadkan waxaan rabnaa inaan ku sameyno beatka. Marka waad jaraysaa, kadib markaad kadka samayso ayaa waxaad iska jaraysaa intaadan baahnayn oo fiidiyowga hore muuqaalka hore. Waad aragtaan suu qaadanayo kadkaana. Marka waxaan rabaa inaan kad ku jarjaro biidadkan oo dhan inaan ku jarjaro. Marka ma rabo inaan waqti badan ka qaado, waayo waad fahmi kartaa. Tusaale ahaan kan ugu dambeeya aan tusayo waa san. Tusaale ahaan kaasaan rabaa inaan jarjaro. Kadkan qabo, CD kana jar, X dheh. Waad aragtaa marka kadkan rabaa inaan ku jarjaro iyo beatka aadka u weyn. Kadib waxaan leeyahay X. Muuqaalka aan jarayo waa muuqaalkan. Markaan rabo inaan gadaal ka jaro, inta aan u baahnahay waan kala soo harayaa, inta haraaga ana waan iska tuurayaa. Marka labadaas meesha iska geli. Kad walba haddaad jartidna waa qaab daro. Xogaa laba beat markaad ku booddoba mid baad jaraysaa. Marka saas qurux ku noqonaya. Laakiin haddaad mid kasta ku jarto xogaa fudud ma noqonaya. Marka kaasaan rabnaa inaan ku jarno. Kana imaanaysaa kad ayaa leedahay. Xagga dambena iska tirtiraysaa. Marka waxaan rabaa inaan boosiyo. Waa fahmi kartaa waxaan sameynayo. Marka la socod wanaagsan. Markaan soo dhamaynay waxaan rabnaa inaan inta u dayno. Muuqaalka markaan daawano inta inaan wax kale ka bedelin. Markaad rabto hal banal inaad soo weynayso, tusaale ahaan waxaad rabtaa banalka inaad soo weynaysid toolka tegaysaa, calaamadda halka ku taalo escape ka hooseysa, taas ay ku dhufanaysaa. Marka saas kugu soo weynaanaya. Marka program monitorkan rabaa inaan soo weynayo ayada daawataan. Okay ayaan leeyahay. Kadibna soo bilaabaynaa. Marka waad aragtaan soo saameynta u yeeshay. Marka hore muuqaal iska caadi ah, laakiin hadda waa ka saameyn badan yahay. Markaad muuqaalkaaga iyo muusikaaga sida socdaan waa ka saameyn badan yahay. Marka anu badanaa saasaan adeegsadaa. Tusaale ahaan markaan intro sameynayo ama wax kale sameynayo, badanaa muuqaalka aan sameynayo intro iyo muusiku waa inay isla aadaan. Waxaan ku hagaajin doonaa, waxaan rabnaa marka inaan color ka saarno. Muuqaalo aad u fara badan weeye. Tusaale ahaan kan iyo kan isku color maaha, kan iyo kan isku color maaha. Waxaan rabnaa
hal muuqaal inaynu ka adeegsano hal clip oo kamid ah clipyada kadibna aynu kalarka ka saxano kulligoodna aynu iska mid ka dhigno. marka kan waxaan rabaa inaan halka geeyo kore, waxaan rabaa track labaad inaan adeegsado, waxaan rabaa inaan kalarka ka saxdo muuqaalkan clipka weeye, clipkaas aan rabaa inaan kalarka ka saxdo. waxaan tegayaa qaybta color workspace-kayga ayaan tegayaa ama kalarkan aan tegaysa adiga hadba sida ku fudud. kadibna waxaan sameynayaa clipkan ayaan waxaan rabaa inaan ka sameeyo duplicate ama copy ka sameeyo. Alt ayaan qabanaya kadibna waa jiidaya kor ayaan jiidaya. duplicate ayaa laga sameeyay. in duplicate laga sameeyo maxaad ku garanaysaa? calaamada buluug ayaad ku garanaysaa oo ahayd duplication-ka ayaa noo furan. waarta show duplicate frame markers waa lagu tusinayaa. haddaan ka xiro hadeer wuxuu noqonayaa aragtaan caadi u noqonaya. marka horey baan usoo barnay kadibna waa soo qaadaysaa, waxaa keenaysaa meesha ugu horeysa timeline-kaaga ayaad keenaysaa. tusaalahaan timeline-kan inoo soo weynay meesha ugu horeysa ayaa keenaysaa. marka kanna ayaa head garay, textiga ayaa head garay. maxaan rabaa marka kalarkayga oo dhan inuu noqdo qaabkaas oo kale ayaan rabaa inuu noqdo oo contrast wax yar ku bato ayaan rabaa. kana dir aad buu cad yahay, marka waxaan rabaa iftiinku inuu ka yaraado contrastiguna ku bato. waxaan tegayaa marka hore saas ayuu ku yahay color correction-kaagu. color wheels and match ayaan tegayaa. waxaa laga yaabaa 18 haddaad adeegsanayso iyo wixii ka dambeeyay inuu ku leeyahay, laakiinse wixii ka horreeyay firshanadaas ma laha. marka waan ku dhufanayaa, waxaan sameynayaa compare view ayaan leeyahay. waxaa la isu kay barbar dhigayaa kan marka aan dul taaganahay iyo clipka ugu horreeya. tusaalahaan kan ayaan dul tagay oo aragtaan compare ayaa lagu sameeyay. kan ayaan dooranayaa kadibna waxaan leeyahay apply match. kan waa inuu doornaadaa kadibna apply match ayaan leeyahay. qaabka laga dhigo waa aragtaa. marka qaabka ayaan rabaa inuu soo baxo. kanna waa tegayaa, dooro apply match dheh, waad aragtaa qaabka laga dhigay. kan dul tag, dooro apply match dheh. wax yar baa waxaa lagu badanayaa guduudka, waad aragtaa apply match dheh. apply match ayaa leedahay. mid kastoo ka mid ah clip walba ka mid oo dul tagaysa apply match ayaa leedahay. waad aragtaan wixiiba isku mid ayaa laga dhigay. marka clipyada tan bes matchka uma adeegsan karto. tusaale ahaan filin ayaad soo daawatay ama filin ayaad jeclaatay kalarkiisa. marka filinkaas aad rabtaa marka muuqaalkaaga iyo filinkaas inay soo ekaadaan. filinkii ayaad sawir ka soo qaadanaysaa kadibna waad soo qaadaysaa baalkii. tusaale ahaan kan kor igay kadibna kan ayaa saa leedahay meesha ugu horeysa ayaa dhiganaysaa. tusaale ahaan hadeer markaan compare ku sameeyo waad aragtaan waxaan rabaa sawirkayga iyo kan inay isku mid noqdaan. kan marka hore igay kadibna compare view dheh, kadibna kan ay dul tag. kanaan rabaa inuu la mid noqdo apply match ayaa leedahay. isku mid ayay noqonayaan. tusaale ahaan mid wax iska bedelayaan. kan ayaan rabaa apply match. waad aragtaan isku mid ay noqdeen. marka adiga kaa ka heshid baa soo qaadanaysaa kadibna waxaa leedahay matchka ayaa sameynaysaa. kadib kan waa iska tirtiraysaa. meeshan compare view-guna waxaad ku dhufanaysaa okay si loo qaado. waxaad igu noqotaa editing workspace-kaygii kadibna waxaan leeyahay okay. marka editing workspace-kayga lagu laabto kan xaggiisii ugu soo celi. waad aragtaan muuqaalkayga waa samaysan yahay. safetan ha ilaawin markasta inaad save garaysto, waayo project aad maanta dhan soo waday ayaa waxaa laga yaabaa in computerku kaa crash garoobo kadibna uu sidaa ku baxo. marka saas samayso waxaad ku samayn kartaa muuqaalkaagii border. maxaan ka wadaa? stroke ayaa ku samayn kartaa. stroke si ugu samaynaysaa waxaan sameynayaa marka hore waxa loo yaqaano adjustment layer. adjustment layerku waxaad ka tegi kartaa projectiga ayaa tegaysaa kadibna waxaad tegaysaa right click kadibna new adjustment layer ayaa leedahay. waa in halka ku saxan yahay widthka iyo height-ku labadaba ku saxan yihiin. okay ayaa leedahay. adjustment layer markaad soo doorato aad dul dhigto muuqaalkaagii mid kasta oo ka mid ah clipyada uu saameynaya waxa aad ku samayso. badanaa haddii light-ku uu ka cunyahay tusaale ahaan matching ayaa samaysay, light-ka ayaa si fiican aan loo arkin, workspace-ka tag, exposure-ka xoogaa ku dar ama weight-ka aad u adeegsanay adjustment layer. adjustment layer maxay ka dhigan tahay? adjustment layer waxaad ku samayso clipyada ku hooseeyo dhan waa qaadanayaan. marka waxaan rabaa adjustment layer inaan soo samaysto. marka hore waa yaryahay, waa intaa weynaysiiso inta muuqaalka ku yahay aad ka dhiganaysaa. markaad saas samayso waxaan rabaa marka inaan border ku soo daro ama stroke. waxaan tegayaa effects ayaan tegayaa
kadibna waxaan ku qorayaa halkaa grid ayaan ku qorayaa grid. Markaan ku qoro ayaan soo qaadanayaa adjustment layerka ayaan ku tuurayaa. Markaan ku tuuro waad aragtaan saas uu noqday. Si aan wax ugu bedelo waxaan aadayaa effects controlska, kadibna waxaan aadayaa meesha ay ku qornayd gridkayga ayaan aadayaa. Anchor point ayaan waxaan ka dhigayaa 0, kana 0 ayaan ka dhigayaa. saas uu noqonayaa. Kadibna waxaan dooranayaa size formkayga, waxaan ka dhigayaa width and height slider ayaan ka dhigayaa. Kadibna width ayaan waxaan ka dhigayaa 1920, kana waxaan ka dhigayaa 1080 ayaan ka dhigayaa. saas uu noqonayaa. Marka ilaa iyo minka muuqaalkayga ma muuqdo, waxaan ka dhigayaa halka blending mode ayaan waxaan ka dhigayaa normal ayaan ka dhigayaa. Waad aragtaan muuqaalkayga waa soo muuqday. Borderkana waxaan ka dhigayaa inta aan u baahanahay ayaan ka dhigayaa borderka. Tusaalahan waxaan rabaa in xoogaa soo weynaado intaan u baahanahay markaan ka dhigto. Waad aragtaan markii hore aad u qurux badan yahay. Border ayaa loo sameeyay. Borderka kalarka waad ka bedeli kartaa, yellow baad ka dhigi kartaa tusaalahan. Okay aad leedahay. Waad aragtaan markii hore dooro haddaynu soo weynayno waad aragtaan yellow ayuu qaadanaya. Marka qaabka ay border ku samayn kartaa. Marka waxaad rabtaa tusaalahan inaad border u sameynaa aad muuqaalka ay ka dhigtid cinematic aad ka dhigtid. Cinematic waxyaalaha laga dhigo waxaa ka mid ah inaad laba baar oo madow ah, laba line oo madow ah dhinacyada kaga soo darto. Kan ayaad iska xiraysaa ama ma warto waa iska tirtiraysaa intaad tagto effectiga. Kan adoo ku dooran yahay effectiga tigaysaa oo iska tirtiraysaa. Marka si aad black bar isugu soo dartid waxaad samaynaysaa crop ayaa ku qoraysaa effectiska, kadibna soo jeedaysaa adjustment layerka ayaad ku soo darsanaysaa. Ilaa iminka waxba iskama bedelin. Si aad wax ku bedesho waxaad aadaysaa effect controls, cropkiina ayaan tegaynaa, kadibna top iyo bottom ayaan rabnaa inaan kaga soo darno. Marka waxaan rabnaa cropku badanaa waxa weeye 1.8% oo kor ah, 1.8% oo hoos ah. Okay, waad aragtaan cinematic ayuu noqday. muuqaalkayga markii hore hadda qurux badan yahay. waad aragtaan. Markaan saas sameeyo waxaan rabaa inuu ku sameysmo codka inta ugu dambeysa inuu fade out inuu noqdo. Waxaan sameynayaa keyframes ku sameysmayaa. Kan ayaan la kala baxayaa. Si loo kala bixiyona waad garanaysaan. Alta taabo kadibna saas oo kala bixinaysaa. Waxaan tegayaa control horta waa dooranaya, kadibna control ayaan taabanaya. waad aragtaan kusoo dar anchor point ayuu leeyahay. Anchor point-ga meesha aad rabto ayaad kaga daraysaa, kadibna hoos ayaa u dhigaysaa. hoos ayuu is yaraanaya. Si uu muuqaalkuna u noqdo mid sii dhammaanaya waa inaad isna kusoo dartaa fade out, waa inaad u samaysaa. laba wax baad u samayn kartaa. inaad animation ku samayso oo effect control tagto, kadibna aad tagto opacity-ga, kadibna aad tagto meesha ugu dambeysa muuqaalka, kadibna aad 0 ka dhigto. saas samayso. saas uu noqonaya. waad aragtaan wuu sii yaraanaya. iyo inaad samayso crossfade aad ku samayso aan waxaas oo dhan marin aad samayso. tusaalahan waxaan rabaa kanaan dooranayaa, kadibna waxaan tegayaa effects, kadibna video transition dissolve, kadibna crossfade ayaan ku sameynaya. waa ku darayaa adjustment layerkan waan ku darayaa. waad aragtaan hal mar ay isla dhammaanayaan. marka qaabka ayaad u samayn kartaa. sidoo kale waxaad ku darsan kartaa loogadaada ayaad ku darsan kartaa. muuqaalkaaga loogadaada ayaad gelin kartaa. projectigaaga tag, kadibna waxaad tagtaa meesha loogooyin ku yaalaan. nooca loogada rabto soo qaado, kadibna dul dhig. waxaad dul dhigtaa muuqaalkaaga dushiisa. markaad dul tagto waad aragtaan legacy size-ka, kadibna effect controls ka tag. waxaad tagtaa nooca rabtid, kadibna waad yareysanaysaa. dhinaca rabto aad dhigaysaa. tusaalahan waxaan rabaa inaan dhigo geeskaasaan rabaa inaan dhigo, ama geeskaas sare aan rabaa inaan dhigo. halka ayaan deenayaa. marka waa inaan ku jiidaa muuqaalkayga oo dhan waa inaan ku jiidaa. waad aragtaan. laakiin se markay soo galayso waa inayna ay kusoo gashaa crossfade, waa inay kusoo gashaa oo hal mar soo wada galaan. cropka laftarkiisa waad sii qurxin kartaa. tusaalahan waxaan rabnaa qaabka uu kusoo galayo inuu qurux noqdo.
waxaad tegaysaa adjustment layer, effective controls ayaad tegaysaa, waxaad tegaysaa meesha ugu horeysa ayaad tegaysaa, kadibna bottomka iyo top iyo bottomka labadaba waxaad u samaysaa keyframes, waxaad tegaysaa meesha aad rabto inay ka bilowdaan. halkan waxaa ka dhigaysaa 100% ayaan ka dhignaa. waxaan rabnaa inuu kala furmo cropkeenu. marka hadda uu gaabinayaa, waxaan rabaa inuu noqdo halka uu noqdo. marka kan waa geysanaysaa, kadibna kan ayaad geynaysaa meesha uu joogo. okay leedahay labada tan waxaan ka dhigaynaa si out ayaan ka dhigaynaa ama auto bizarre ayaan ka dhigaysaa. waad aragtaan qaabka kusoo gelaya. marka qaabka ayaad adeegsan kartaa. waxaan u malinayaa muuqaalka inaanu dhammaystirnay. waxa inoo harsan u yahay bas export inaan ku sameyno. laba qaab baad ugu sameyn kartaa export. hadda tusaale ahaan loogadeenu way ka dheer tahay, waxaan sameynayaa soo qaad halka gey, kadibna waxaan sameysaa effects, waxaad tegaysaa file, kadibna export media ama Ctrl+M. markuu saa kugu soo baxo waxaad rabtaa marka inaad saxdo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad saxdo. marka ugu horeysa waxaad tegaysaa formatka H264 ayaa ka dhigaysaa, presetkana waxaad ka dhigaysaa haddaa YouTube wadid, tusaale ahaan YouTube baan wadaa, waxaad ka dhigaysaa YouTube 720 pixel ama hadba kaa rabtay ultra 4K aad ka dhigaysaa. marka ultra 4K waa culus yahay, waxaan rabnaa 720 inaan ka dhigno. magaca rabta aad ku qoraysaa, halka corona u daa. haddaynu eegno muuqaalka siiskiisa waad aragtaa 1920x1080 video aan tegayaa 1920x1080. kadibna export ayaan leeyahay ama Q ayaan gelinayaa oo waxaa la soo kicinayaa programkii kale oo Adobe Media Encoder. marka labadaas aad samayn kartaa. tusaale waxaan rabaa inaan Q geliyo, kadib diyaarinayaa Adobe Media Encoder kii ay soo kicinaya markaba. waad aragtaan Adobe Media Encoder kii ay soo kacaya. markuu Adobe Media Encoder ku soo kaco sidaa ku sameynaya ama export caadi ah ku samaysanaysaa. muuqaalkan inta ayuu ku egyahay iyo casharada imtixaanaha oo ka socday channelka bishii Ramadaan gudaheedii waliba barnaamijka Premiere Pro. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad aad u fahanteen qaabka barnaamijka Premiere Pro wax lagu jarjaro, loogu qurxiyo, looga saaro waxaan rabin, lagu soo daro waxaad jeceshahay. wax kasta oo insha Allah aan siri way fudud yihiin waan idin sameeyay. wixii su'aalaad qabto waxaad igu soo weydiin kartaa qaybta commentiga. waxaan leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.